kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka murti iyo madadaalo. Toddobaadkan barnaamijka waxaa marti nooga ah abwaan geesi oo ka faalooda abwaan ah sidoo kalena jilaa dhanka suugaantana aan ka marnayn. Waxaan ku darsadaa waliba waxyaabo kale oo dheeraad ah oo la xiriira arrimaha dhanka saxaafadda aan dhahay. Abaan kusoo dhawaad marka hore ugu horeyn barnaamijka bulshada Nesbar. aad baan mahadsan tahay aad baan kaga mahadcelinayaa soo dhaweyntiina inaan stuudiyaha Andoolku TV-ga SNN joogo aad baan ugu faraxsanahay maasha Allah bulshada Andoolku horeeya haddii aan isbaro inta haddaan uga soo laabto magacaygu waa Geesi Cabdiwaaxid Aadan dee wixii intaa dheer iyagu baan garanaya macaan dabcan waxaa laga yaabaa in dadka inta badan ay ka arkaan baraha bulshada adigoo oo wax jilaya oo dhanka jileenka iyo waaydaha iyo suugaanta iyo gabayo iyo wax badan isku dhexwada siyaad isku keentay inaad dhinaca saxaafad ka shaqeyso dhinaca ka noqoto aad baa mahadsan tahay runtii dhinacana inaan saxaafadda ka shaqeeyo dhinacana aan ka majaajileeyo dhinacana hal abuurkii ka wado wixii baan isku wado niyo waxaan arkay waxaba inaan isku cakibin karaan arkay marka arkay wixii inaan isku cakibin karo qaybta jilaanimada weligiiba horta dadku dhahayeen niyo jilaa baa tahay wallahi qosol miran baa tahay markaan sheekeynay dadku aad u qosleeyeen marka taas dadku bay igu dhiirigeliyeen jilaa waagi hore inaan hama mooday ilaa haddii ku yahay muddo yar oo haddii ku yahay kooban aan dhihi karo ma badna ayaan haddii ku yahay qaybta jilaanimada aan ku dhex jiray laakiin intii ka horreysay dadku ma jilaan noqotay ma wax soo saadidaas igu hayn jiray dhanka saxaafaddana waa talentigayga waa haddii ku yahay waa maaragtay professionkayga aan ku shaqeysto weeye maaragtay ma aadiyaan tan hal abuurnimada iyo abwaanimadana taasna uurkan kala imaayadana urkaas kala imaaday maxaad ku bilowday markii hore ma dhankan gabayadii aad ku bilowday mise waayadan dambe kaamerooyinka iyo dhankan aad kasoo barnaamijka kusoo dhexmaqaday aad baa mahadsan tahay runtii waa su-aal qiimo leh waxaan ku bilaabay hal abuurka weyn hal abuurka yaraantaydiiba anoo tobanba soo gaarin waa faraqay waa sii daynaya waa shubay baasha haddii ku reeyay marka haddii ku reeyay qaybta weyn ee Soomaali weynta ma garanay markaas koos waan yaraa nin yar ayaan ahaa garaadkii mar walba qofku yar yahay garaadkiisa ayaa yar marka haddii ku reeyay afrayda aan gabdhaha lagu shaqaansanay midaan wiilasha ku ridaayo cidaan isqabano baan aqaan dhaga gacmaasa siinay baasha yaraanteedii markii aan haddii ku reeyay weynaadana aan saxaafadda haddii ku reeyay aan bartana ayada waan ku shaqeeyay qaybta haddii ku reeyay jilaanimadana saan hore ugu sheegay bulshada haddii ku reeyay ay ugu dhiirigeliyay inuu jilaaba taasii u lahaayeen dabcan waxaa jira suugaan aad tirisay oo gabayo iyo isugu jirtay maansiin oo waxyaabo kala duwan ka hadlaysa oo in badan hirgalay oo aad loo daawado la dhaha waa ninkii abaankii gaabnaa tan xaniga ma wada joogtaa barnaamij gabi ugu horeysay ama suugaantii ugu horeysay intaad qortay ama maskax ka dub suugaantii ugu horeysay aan sameeyo Soomaali weyn midaan ugu talagalo Soomaali weyn waxa ka turjumaysa xilli hore ayaan sameeyay tobanba markaan soo dhaafay aniga dad markay dadku yarkaan muuqaalkayga ninkaan bato waa asaga oo toban jiray leeyahay laakiin toban waa ka weyn dhawin odayaanaba كوني مركي أنا هدول الكورين تو بس وقاري سوقان تسمع لوين تابان بلاوي عن كل هذا هدول الكورين بالشدة أبين وحابضن ما سوين كي جعيل كا أما هدول الكورين بالشدة كده حسميه وحكبضن ودنيا دنا كبضن بالصوم لوين تقول هذا وحجر لفت والله كيف سيجا ماشى كمان مغنى مرتدى مفصلة ماشى كم مغنى يدرو كجد marka hadii ku reeyay Cabdi Caliyo ugaas waxaan ku leeyahay ma sha Allah aad baan horta ugu faraxsanahay inaan maanta hadii ku soo fardhino inuu ka sheekeynayno mar labaad hadii ku reey bulshadeena ayna wareysi ay yeelataan bahda SNN TV waxaan ka mahadcelinayaa dee taasna waa bad gabayada iyo maasooyinka geeraarada jacaylka heesaha dhaantooyinka meel aan dhaafayo male jilaanimada waxa cagta saaraya aan ku bilowno waxa badan in waqti hadda la joogo in Soomaalida yara badatay oo meel kala duwan ay joogto iyo dibadba oo meel sidii hore marka loo fiiriyo Soomaalinimadan dib waxa naga wada dhaxeeyo dadka dhanka dhaxaysa maxaad suugaanta ka xasuusato ama mid kamid ah oo Soomaalinimada ka hadlaysa waxaan ka xasuustaa kabayaan ka xasuustaa maasooyin ayaa ka xasuustaa marka bulshada qofka matalaya maanta tolo muxuu taa noogu weydiin waayay ay leeyihiin waadiga
maxaan markaa dowla ku horeeyaa ma maansadaan horumariyaa ma gabayga dabcan dadka abwaaniinta fanka way yaqaanaan wax badan ay ka yaqaanaan dadka kale marka loo eego aniga camal wax badan ma kala baxsan gabayga haddii la dhahay sugaanta iyo ama maansaan ku dhahay ma kala garan karo farqi ma dhahay dad kalena u shara ana sidoo kale ka faa'iideysto runtii gabay iyo maaso geeraar jiiftu guurow sugaantu way noocyo badan tahay waxaan nooga soo qabanayaa laba ka mid ah labada nooga soo qabanayo waa gabayga iyo maansada maansadu way ka godyadhaa godka sida aan dowla ku horeeyahay laba god oo kale dhacdaa saddex god oo kale dhacdaa saddex god ma dhaafta iyadu saddex god wixii ka badan gabay weeye oo haddii lagu horeeyahay ergiisu uu dheeriya afar god ayuu tagaa maansadu waxay u dhexaysaa laba god saddex god way ka godyadhaa gabaygu sidaa la aligeed qof walbo ciil kaambi uu ku dhaco maansada ama gabayga ama qof marka wax sidii sameynaya ciil ayaa ka keena ama wuxuu bulshada wax ka dhacarko qofka maanta markii ama la xiro ama wax ay axjool lagu horeeya markaas calooshiisa qaadan weyda ku dhacaan dareen la soo gudboonaado maaso wuu curinayaa maaso wuu samayn karaa laakiin godka gabayga hadduu saa u dhawan marka hore ilaahay haybadaa usa siin godka gabayga uma dhawaan karo laakiin wuxuu dhawaan karaa godka maansada ciilkaas godka maansada buu ka satuuraya because wuu ka godyayahay waa laba god keli sidaas oo jool ku kala baxa aan ku horeyno dhanka gabayada halkaasi gabayga ku hormaraa aad baa maasan tahay gabaygan waxaa la yidhaahdaa aan markaa aan ku hormarano gacalooyin oo ka kacay la yidhahdaa wixii ku jira xigmad asagaa lagala dhexbaxaya ma ku dheeraanayo hadalkiisa faahfaahintiisa bulshadu ayagaa kala dhexbaxaya wuxuuna ku bilaabanayaa sida tan marka gacalooyinka waxaad ula jeedaa dadka soomaalida oo si guud ahaan mise si guud ahaan dhammaan gacalooyin oo ka kaca la yidhahdaa waa hadii kula gacal waa garanaysaa gacal baa taad waqtiga gacalka ayaad ka mid tahay dadkan la hadlay ayaad ka mid tahay waan gartay leeyahay bulshooy gabaygu waa garasha gaaro gula bixiyaayo waa geeraar gaar looga dhigay ruuxii garanaya anagu igu gaardinahaya galima mogay gashaniyo gamaanku dooni maayo gunya lacageedo guhaadkii gabay baan hayaa garashadiisiiye goglaha noo fidiya gacalooyinu gabi ahantinba gudoomiyooday dhaqameedka garta kala goya gamboolayda caruurtiyo intii gooni wada jooga gacalooyinuu ka kaca waqtigu way iskuurayaaye inagoo garbahaysaysanna gabdha iyo wiilal waxay talo nagu gowracan tahay aan la garan wayn gacalooyinuu ka kaca waqtigu way iskuurayaaye gayigeena soomaaliyeed waa la kala goyey guduudana iyo waraabana helay garabna la sheegtay godka iyo abeesada gugumada guriga noo jifa garab ha ku sii qabil uuna kala geeye gardo duubintaadu xidhan geeska wada jooga gacalooyinuu ka kaca waqtigu way iskuurayaaye inagoo garbahaysaysanna gabdha iyo wiilal waxay talo noogu gowracan tahay aan la garan wayn garnaylkii nabada dhaqaaqay gacantaysiya gacalooyinuu ka kaca waqtigu way iskuurayaaye gayifog haddii uu golo gurgur lagu bobo ninkii aan gaadiid adag lahayn laga wada guryey gacalooyinuu ka kaca waqtigu way iskuurayaaye inagoo garbahaysaysanna gabdha iyo wiilal waxay tolo nagu gowracan tahay aan la garan wayn waxay tolo nagu gowracan tahay aan la garan wayn dabcan waa gabay marka qofkii fahmaa wax badan maskaxdiisa kusoo kordhin karo aad iyo aad waxaan ku jirta eriyo intaan ka yara fahmay xoogaa gaduudani iyo waraabaan helay garab nala sheegtay macnihii gududane waxaa la yidhahdaa inta badan bahal miyiga galo oo xoolaha halkan bay ku dhagaan nab xarahayo aan la dareemin nab neefka hal mar dhulka la gelayaa marka in badan oo Soomaaliya waxaa jira gududanaha nagu ah ramin haddii lagu hore horumarkeena marka haddii lagu hore gududane iyo waraabaan helay waraabana waxaa la yidhahdaa bahalka haddii lagu hore isagana dhurwaagay dad u yaqaanaan bahalkaas haddii lagu hore yahay baa la yidhahdaa marka labadoodu way kala dergan yihiin labadaasoo Soomaaliya ayaa lagu dhex jira waxaan marka gududane iyo waraabaan helay garab nala sheegtay oo macnaheedu Soomaali baan ahay
marka hadda la ku reebudanayo waraabana helayay galab nala sheegtay godka iyo abeesada gurgumada guriga noo jeegta iyaguna waa bahla kale waxaasa naga dhex buuxa aanu iska qabanaa leena macallin gaclo inuu meesha ka kacana gartay